nuux calayhi salaam markii uu ku dadaalay qoomkiisa dhexdooda si walbana uu wax ugu sheegay ay ku gacan seereen, waxa uu gacmaha kor u taagay isaga oo dhahaya: rabbiyow laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara, innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara. ducadiina eebbe waa uu aqbalay, waxaana nuux calayhi salaam si degdeg ah lagu faray in dooni uu samaysto. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in doonta nuux calayhi salaam uu ka dhex samaynay meel bad ama webi midna aanan ku yaalin, dhul qalee leh dhexdiisa. arrintanina dadkii ka soo horjeeday nuux calayhi salaam aad ay ugu qosqosleen. nuux calayhi salaam haweeneydii uu qabay xitaa iyo wiilashii uu dhalay qaar ka mid ah waxay ahaayeen kuwo aabbahooda ku caasiyey oo gaalada ka mid ah. markii halaagga uu soo dhowaaday nuux calayhi salaam waxaa la faray in dhulka wax walba ee nool laba uu ka qaado, waxaana dhici doona halaag aad u weyn. dhulka oo dhanna kor iyo hoos waxaa laga soo daayay biyo, dhulka oo dhanna daad biyo ah sida bad oo kale ayuu noqday. waxaa la baabi'iyey wax walba ee dhulka saarnaa. arrintani duufaanta nuux calayhi salaam sidoo kale waxaa lagu sheegay xitaa kutubtii hore sida towraadka iyo injiilka. nuux calayhi salaam wuxuu doonta saaray noolayaasha dhulka saarnaa, mid walba labalabadiisa iyo qof walba ee rumeeyey. markaas ayaa dhammaan marka doonta la wada fuulay ayaa alle waxa uu yidhi: fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir. samada waxaa laga keenay roobab xoog badan, dhulkana meel walba waxaa laga dilaaciyey biyo sida webi oo kale. duufaano xoog badan ayaa dhulka oo dhan ka wada dhaceen. nuux calayhi salaam markaa dhulkii uu ku sugnaa ee qaleelka ahaa waxa uu noqday mid wada biyo ah. markaas ayaa lagu yidhi: doonida kuwad bisimka alle, bismillaahi majrayha wa mursaaha, inna rabbii lagafuurun raxiim. nuux calayhi salaam dadkii beeniyey ee ku qosqoslaya markii uu doonida samaynayay weli kama uusan rajo dhigin. markii uu doonta raacay xitaa si aad u badbaadaan doonteeda soo raaca ayuu ku dhahayay. kitaabka qur'aanka waxaa lagu sheegay nuux calayhi salaam iyo wiilkiisa qisada dhex martay markii halaagga biyaha uu ku bilowday daqiiqadihii ugu horeeyey. nuux calayhi salaam waxa uu u dhawaaqay wiilkiisa isaga oo ku leh: yaa bunayi irkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin. balse wiilkii nuux calayhi salaam waxa uu yidhi: maya, biyaha waxaan ka fuulayaa buur aad u dheer, ima soo gaari doonaan. marka ay sheekadu halkaas socotayba waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin. wiilkii mawjada hirka biyaha ayaa dafeen, kuwa biyaha lagu halaagay ayuuna ka mid noqday. dhulkii iyo magaalooyinkii xilligii idriis calayhi salaam la dhisay oo dhanna geedaha wax walba waxa ay noqdeen kuwa dhulka lala simay. dhulka kuma aysan harin wax nool ilaa nuux calayhi salaam intii raacday marka laga reebo mooye. waxay dadku isku khilaafeen halaaggii nuux calayhi salaam doonidiisa ma meel kooban oo keliya ayuu ka dhacay ama adduunka oo dhan. waa mid jawaabteeda lagu kala gedisan yahay. balse waxaa xaqiiq ah inuu dhacay halaag aad u weyn. doonta nuux calayhi salaam sidoo kale waxaa saarnaa waxay cunaan iyo waxay cabaan. dadkii rumeeyey nuux calayhi salaam waxaa lagu sheegaa in ay gaarayeen 12 qof. haddii ay ka badan yihiin xitaa waxaa si guud loo ogyahay dad aad u yar inay ahaayeen, sida kitaabka qur'aanka lagu xusay: wamaa aaman macahu ilaa qaliila. muddo 6 bil ah ayay culimmadu sheegaan in doontu ay wada saarnaayeen nuux calayhi salaam iyo intii rumaysay. biyaha dhexdooda ayayna dul socdeen muddo 6 bil ah. markii cid walba ee kaafir ah iyo guri walba dhulka laga sifeeyey ayaa alle waxa uu ku yidhi samada iyo dhulkaba: yaa ardu blicii maa'aki wayaa samaa'u aqicii waqiida almaa. dhulkana sidii la fara ayuu sameeyey, biyihii ayuu laqay, samaduna roobkii ayay joojisay. dhulka markii uu qalalay uuna noqday mid baraka leh oo muslimiin oo keliya ay ku noolaan karaan ayaa nuux calayhi salaam lagu yidhi: ka deg doonida adiga iyo inta ku raacday, kuna raaxaysta nimcada alle. nuux calayhi salaam wuxuu la noolaaday inta yartaa ee rumaysay, waxaana la isku khilaafay in 4 wiil ay ka farcantay ama in 3 wiil ay ka farcantay. waxaa la sheegaa saam, xaam iyo yaafith. saam waxaa ka soo faracmay sida la sheega dadka carabta, iiraaniyiinta iyo dadka roomaanka.
xaamna waxaa ka soo faracmay xabashida dadka madmadow iyo indida yaafisna waxaa ka soo faracmay dadka kale ee aasiyiinta sida turkida Chinese-ka yaajuuj iyo maajuuj sidaana ayaa la sheegaa in mar kale faraca bani aadamku sida uu ku soo tarmay xitaa dadka qaarkood nuux calayhi salaam waxay u yaqaaneen aadamkii labaad allaha ka raali noqdo nuux calayhi salaam wuxuu qoomkiisa dhex joogay in ka badan 950 sano balse markii uu arkay in canug walba ay dhalaan iska badaa in hanuunka uu qaatee gaalnimo ay u horseedayaan 9 qarni iyo 50 sano tajribadii uu ka helay isaga oo raacaya ayaa waxa uu dhahay eebow dadkani suuragal ma aha intani kadib inay hanuunaane dhulka la sim hana ka tagin dhulka guri gaal uu leeyahay aniga iyo inta rumaysay waalidiinteeda iyo cid walba ee gurigayga soo gashay rabbiyow u dambi dhaaf إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.